وداوع دنتو wadna iga dhufteen xukunka maxay suutii walaalkay weyn laayeen waxay noo reebteen ma jirto meed baan noo yaala daawac baan noo yaala nolol inagula tala galay ma jirto adigoo daawac qaban booliiskii lagu xidhay diideen in daawac muujin lagu sameeyo oo dhakhtar lagu geeyo qaawan ayuu ninka bika la yiraahdo cid kale ma ay saldhiga daloodha joogay wuu yiri naa gal markuu soo toosay aan kuugu yeedhaynaa xabad halkaas ka dhacday wadnaha waxay ka baxday bidixda kelida bidix bay ka baxday kadib neesaasay u dhaxmartay caloosha ay qaliino maray midqirkiisii aanaba gacanta saa ugu celiyay habeenkii aasitaanka marxuumka maxaad qoys ahaan doonaysaa waxaan doonaynaa ilaa ninkii dilay lugta loogu xidho anagu ma aasino halkaas uu noogu jiray talaagada waxa weyn hooyo inankii shalay aan ku sheegay inuu dhaawacayo caloosha ka soo dhacday wuu dhintay marka waxa weeyaan hooyo wali xilliga inankaasi dhintay ee 6 qof oo dhaawac ah oo waliba mid imika siirays yahay guriga ii yaalo dawladayda kamaan helin wax digniina iyo waxay daaradayda soo joogsadaan midna kama hayo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود القلب ونحسن مالك استود نقد داونسان لقمان ميديا واحد كداونسين هل كانوا حفظ الجرشوادنا وعيد نصور الري قفنا داوعمي سيدا إهل كويش شيء إن كداوعمي وارد تعالى ونحرسته إن كاد انتي أو ولالكي أو تذكي قويس كهبين كاتشوجينا كم دابون ورسون دنا وغير مقعد ولا مقعد واحد ياسين محمد waxaan ka tirsan qoys kan dhibaatada ku dhacday habeenkii dhaweyd waxaan soo waray saacadu markay ahayd 2:40 daqiiqo markay ahayd ayaan la soo weeraray kadib markii ay cagaftu meeshii soo gashay ay saa guriga ugu dhuftay aan soo toosaana albaabkan soo furay laba askari bay hor taagnaa albaabka xidhay ugu dhahdeen intay qoriga cabaysteen hayay intaan ku uri on mariyahayga soo xidhay ayaan albaabkii la ku soo jibiyay kadib askariga way iga hor dhaqaaqay sidii baan ana hawsha dhagax baan aynsaday oo aashii la dhacay cagaftii jiingada duminaysay kadib cagaftii way naga inaan kan marxuumka Allah naxariistay imka dhintay ayaasna gurigiisa ka soo baxay labadeeda ku kulanay markaanu dhowr dhagax ku jibnay cagaftii ayay cagaftii dib u noqotay reefad bay gashatay halkaasay dib uga noqotay kadib markii ay dib uga noqotay ayaanu sidaa u yar daba yaacnay ciidan baa rasaas nagu soo furay dabeetana waxay ku dhacday inaan kan imka dhaawac dhintay ee walaalkay nooga weynaa marka kadibna sidii baan isaga ula cararnay dhakhtarka kula cararnay wixii ka dambeeyay markaa dumarkii joogay baan sii waraysan doonaa laakiin aanu dhaawacaan qaaday oo xagga dhakhtarka ayaan kula cararay markii baa inanku ay ku dhacday qof baa qoyska laga imika 5 qof baa laga xidhay shalay wala sida 5 qof wala sii gaayay 5 dhaawac 3 baa laba dhaawac ahaa inanka xabadu see ugu dhacday mar haday adoo qofkii qaaday ahayd xagee xabad halkaas ka dhacday wadnaha waxay ka baxday bidixda kelida bidix bay ka baxday kadib neesaasay u dhaxmartay caloosha ay qaliino maray midqirkiisii aanaba gacanta saa ugu celiyay habeenkii halkaasaan kaga celiyay iska shalay hooyo aan wareysanay family waxa la ciidanka booliska meesha yimid ma ciidan booliska meesha yimid mise ciidan shacab oo cid kale ma ciidan boolis oo far badan baa yimid sida xaqiiqada aan ku helay ciidanka halka noogu yimid waxa yimid 5 askari soddon baa ahaa ciidanka dawladda hoose 25 waxa laga keenay taliska guud marka taliska guud amar taliyaha ayaa caawimo la weydiistay taageera la weydiistay buu saasan ku soo bixiyay taliyaha qaybta ayaa yiri caawimo la weydiistay kadib 25 askari baan ku daray buu aasitaanka marxuumka maxaad qoys ahaan doonaysaa waxaan doonaynaa ilaa ninkii dilay lugta loogu xidho anagu ma aasino halkaas uu noogu jiray talaagada aan sharciga u marno ayaan rabnaa ma garanaysa miyaan la helay cid xabada riday ee ku dhufatay isaga shakhsiyan ma loo garanayo ma shakhsiyan looma garanayo ciidan boolis ahaan baa loo garanaya see lagu heli karaa baaris dawladda taa ku shaqeeya magaca ma hadli kartaa dhaawacya ka muuqda sidii wax ku gaar walaalo alxamdulillaah rabbil caalamiin shanino askariya bay dilay aniga meel wala kasta way ugu dhufteen qori dabadii waxaan ahaynay lama dhicin hadana alxamdulillaah waxa laakiin waxaan idinka codsanayaa inay noo soo qabataan maayir ku xigeenka khadar iyo baalig iyo ninka dawladda hoose haysta degmada haysta maayir cismaan iyo waxaan doonayaa inay nuur ismaaciil mahdi 3 nin oo naloo soo joojiyo baan anagu qancayna nin kale uma baahan iyo kii wax dilay wala waxay sameeyeen weyn laayeen waxay noo reebteen ma jirto meed baan noo yaala daawac baan noo yaala nolol inagula tala galay ma jirto ilaa 15 ilaa malinka maanta way naaysta waliba ninka aan naga daba harin ee hameen qoobka naga qaadin ee daba socda waa ninka dawladda hoose haysta ee cismaan ka ku xigaana waa khadar maayir ku xigeenka ka ku xigaana waa nuur ismaaciil mahdi
saddexdaan nin dhiiggay naga yareeyeen oo dhiiggay nala qaybsadeen oo noloshayadii way nooga been oo daaradayadii bay nagu haystaan oo dhulkayagii bay nagu haystaan aniga jilbuhu way xanuunayaan gacantu way xanuunaysaa madaxa 4 qodob baa lay tolay intaana 4 askari bay dilay 4tana weliba xadhig baa laygu daray anigoo waxaan guri dhiiguyda ayaa weliba xadhig laygu daray oo waxaan guri ayadoo aan garanaya saldhigga daloodho anigoo garanaya askarteedu ay dileen ayay yidhaahdeen kumaanaan dilna dawladda hoosaa ku wadatay anaga ku wadanay anaga waabaanu ku naxna waabaanu ku toosnay ayagoo aan wada garanayo ay ku jiraan oo saldhigga daloodho horta 3 wajiyadooda garanayo ayay waliba igu yidhahdeen dawladda hoosaa ku wadatay anagu waabaanu ku toosnay oo aan yidhi dhiigga ay qoray igu yidhahdeen mama waxaanu ku tusaynaa markuu yimaado ka meesha haysta adigoo dhaawac qabaan booliiskii lagugu xidhay diideen in dhaawac muujin lagu sameeyo oo dhakhtar lagu geeyo qaawan ayuu ninka biika la yidhaa cid kalaba ma ee saldhigga daloodho jooga igu yidhi gal markuu soo toosay aanu kuugu yeedhaynaa kan cuna meesha haystaaye dambi baadhahana weliba biikaybu oo qaawan oo mudha ayuu saldhigay geeyey uu igu yidhi gal guriga markaan guriga kaceeyo igu celiya gurigayga askartii habeenkii dhood guriga timi askartii baa ii geysay oo ila dhacday oo i dishay oo nolol iigu tagay marxuumka maxaa sutiyey walaalkay uu dhaawac dhinto wadnahaygaga dhufteen ilaahay samri ma naga siiya idinkana ilaahay ha idin galay maanta tani ma dhicin hore u dhacdo wax kala qabtaa la waayay inaan kaasi dawaad arkaysaa hooyo wadadaas u dhaxaysay wadada anigu intaan arkayayna dareerkaas uma deganaa meeshaas way xeernayd halkan baan deganahay anu jaarka in fogeyn 8 nin arkayay inaan kaasi xabada imika bilihii ugu dambeysay maalin walba sida dhagaxu ku soo shiidayay dadka cidna may qabanaynin halka waka gurigiisii maalin walba ku soo shiidayay xabada waa ina Ismaaciil Mahdi weeyaan waxa weeyaan gurigiisii waka aydo dabadeetana aniga inaan walaashay oo agoon yar halkan ku haysata oo jiingada degan xitaa cisho dhaweyd dagaalkii ka dhacay isagu horiyay waa lagu dilo alaanaga dhagtaas oo markaysid ayay u liidataa deeda anagu waxaanu arkaynaa dad wixii ay 8 sano doonayeen unba maanta dhacay waxaan wax cusub mu ahayn dhibtay geysteenna waad arkaysaa wax leeyahay dumar halka taagan way dhaawacan yihiin dib baa jirta dhaawac baa jira waxaantay burbur baa jira dhimasha jirta wax kasta waad ogtihiin hadii waxba laga qaban waayo casarka annaga wax ka qaban doona dadkan annagoo jaarkiya iyo wax ka qabanayna hooyo wariyo waad mahadsantahay hawsha halka ka dhacday waad aragtaa cagafta halka xaafadda 3 habeenimo lagu baabiyay waad aragtaa magaala la dagaalamay hawshan waxa geystay khadar ina ka yaree maayir ku xigeenka meydka talaagada maanta loogu jiray isaga u dhimanay gurigiisana waanu naqaanaa 24 saacadood intay ka soo wareegtin hadii war degdeg dawladdu naga soo siin weydo wallahi gurigiisaanu daadanaa oo bilaahi gurigiisaanu daadan amarkan isaga soo bixi Chinese ka maayirku ka faa'iideystay qalin biiro yar buu ku soo saxeexay wax $10,000 in la qaatay baa xitaa loo sheegay oo laaluusha oo ciidanka lagu fangaray oo cagafta lagu laaluusha Chinese ka maayirku ku maqnaan inuu ka faa'iideystay waan naqaana khadar mooyaane cid kaloona anagu u raacayna meydku 20 cishaad 50 cishaad ka soo wareegto meydku talaagadu noogu jiray waxa wallahi oo billahi oo tallahi inaanu khadar lugta ugu xidhina wallahi yawri hadal intaas iga dhig bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weyn hooyo inankii shalay aan ku sheegay inuu dhaawacay oo calooshu ka soo dhacday wuu dhintay marka waxa weeyaan hooyo wali xilliga inankaasi dhintay ee 6 qof oo dhaawac ah oo waliba mid imika serious yahay guriga ii yaalo dawladayda kamaan helin wax digniina iyo waxay daaradayda soo joogsadaan midna kama hayo ma garatay marka waxa weeyaan anu aniga kurkursanayo dhabarkan ka jabanahay gurigaygina waka wax garowshiyo dawladda wali kama hayo wax garowshiyo dawladda kama hayo wax digniino halka ii yimaadana ma hayo marka meydkaygina waka talaagada ku jira waa ka rasaastii layla dhacay waa taa rasaastii layla dhacay waa taa waxa weeyaan intii daaradayda aan ka qaadqaaday waliba weeyaan tiinkada duntay horteeda intii aan ka qaadqaaday waliba weeyaan marka waxaan doonayaa waxaan idin leeyahay aniga meydka iigu jira talaagada ee aqalkayga habeen madow la duminayay u dhintay ee ku dhintay ee 5 qof oo laga soo saarayna waxaan ku la xidhay ee si xun loo dilay aniga iyo inantaydiina madaxa la isku kaayo xidhay ee halka waxaan ku lana jiiday sidii waxaanu meydnahay ama adhigi la iib geynay aanu nahay baa inta cunaha la naga wada xidhay lana jiiday oo timahayga anoo da'daas oo cirale intuu ina yar faraha saa u galiyay oo timahayga iyo timihii inantayda isku xidhay ayuu halka i jiiday
marka waxa weeyaan Soomaali Maxamed laguma arag reer Sheekh Saxaaqna laguma arag waxa weeyaan tu maanta u horeysa oo u horle yaan leeyahay anigu ciidanka dawladda hoose khadar baa noo soo adeegsaday marka waxa weeyaan ninka khadar kama dambaynayo Naasir kama dambaynayo lugta la iskugu xidhaya oo wallaahi ragna wuu dhaartay ana waan dhaaranaya أنا واحد عبد السميع عثمان علي نقدر توحى أحمد ناصر عثمان علي ستح هولالك ستح ذهب النبى لك هذا الوري نبض يعانو كسر كل وحنا فريسي ستح ذا يدو أمني كده ولده ستح ذهب اليوم مخي مرق شيء يدو نبض يعان ساعتين وهبن أو فيت كده سؤال ذلك وهبرينا على الواب وحبض أقول عليه هن إلى حلقة قبل تمشرو وأنا كنت marka anagu waxaan leenahay hadii saacada imika wax laga qan waayo dawladdu marka anagu saacadaadii wax laga qan waayo wixii lacag ma jirno Luqmaan waxaan nahay ugu horeyn anagu faamigan baanu nahay geeridu ka dhacday ama waxa weeyaan ninkaas sida qaladka loo dilay faamigiisii ayaanu nahay waxaanu ku dhintay waa jiingada aynu hor taaganahay ee cagafta la geliyay isagoo iska difaacaya rasuulkeena wuxuu calayhi salaatu wasalaam man qutila duuna maalahu fa huwa shahiid horta ninkaas isagu waa shahiid oo ninka maalkiisa sokadii la dilo isagoo iska difaacaya waa shahiid taayada halka ay noo dhig waxaanu leenahay anagu haddaanu faamigiinahay maanta marxuumka ayaa le talaagada ku jira ninka aanu u haysanaa waa khadar weey waa maayir ku xigeenka waxaanu leenahay hadii la noo raacin waayo anaga gacanteeda ku fushani maayir ku xigeenku isaga fuliyay waa sabab iyo cidii bixisay weey maayir ku xigeenku ana bixiyay buuri shalayna wuxuu ka hor yiri wasiirka amniga hortiisa aniga ayaa falka geystay wixii meesha ka dhacay ana qaatay buuri marka anagu ninka raacsanayna waa ninka hadii raacin weyda dawladdu 24 saacadood wixii ka dambeeya gacantayadaanu kaga shaqeynaa ninka anagu sheekh dadku si ay noo fahmaan ninka xabada riday maayir ku xigeenka mise waa shakhsi waa ninka amray maayir ku xigeenku laakiin qofkii riday soo dambiga ma qofkii riday ma yeelanayo arrintu way kala sokaysaa haddaad adigu ku dhufo tiraahday imka qofka adiga falka fuliyay maayir ku xigeenku sidoo dadka u sheegay abniga horteedana ka sheegay isaga ciidanka la soo baxay maxaad sanbadayna ninka walkii baan ahaa walkii ka weyn baan Allah naxariisto waxaan leeyahay waana la foyidsaday habeen bar baan ninka la gastay barkii habeenimo la galay saddexdii habeenimo la galay ciidan baan galay anu halka badin maayo waxaan leeyahay cadceedaas intaan ay dhicin dilka falkan waxaan haysanaa maayir khadar baan haysanaa maayir xigeen baan haysanaa isaga ninkii fuliyay baan haysanaa cidda ku dhufatay isaga ula gali doona waxa leenahay cadceedaas intaan ay dhicin haddii waxna looga qaban waayo gacanteedan ku fushanaynaa gurigiisna waan garaynaa mana deynino intaas aniga dhantay